يا واكله وملكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وين وضع السلامي ميول بأدونك تكتشوكتان وولاشينا ملكي أو إذن له كسور دوادة وجه فرن قلب فرن يكعم فرن با ما أنتوا مقال عصب وحان ربعين ka hadlo موضوع aad iyo aad u muhiim ah dadkayga aan rab inaan uga faa'iideeyo hadduu alla yiraahdo waxaana jeclahay intaanan u gelin mawduucayga saad iigu taqaaniin subscribe-ka iyo ma aragta like-ta iyo share-ka waa dhinaciina hadduu alla yiraahdo inta ila joogtayna waxaan leeyahay thank you waa mahadsantihiin daawasho wacan inta nagu soo darsoomaysana waxaan leeyahay welcome gacmo furan ayaa inagu soo dhaweynayaa موضوعي ما أنت أقول مهم سوى حويه وأنا رب إنا ماشي نقهضله اللهم صل على محمد وحنونه وأد مهم إني والدين تيسومالي ذبا وقربها كنول يكوا ذلك تشوجبا أي ما أركت أجادان وحيهين يا ما أركت يحال ذها سيدا ما أركت اللو داويه هذان بلاب وأنك بلابه waxaweeye xanuunka ugu muhiimsan oo hadda aad ugu soo batay Soomaalida horena loo aqoonin inuu jireen oo laga yaabaa laakiin hore looma aqoonin waa xanuunka la yiraahdo autism-ka kaasna waan rabaa inaan ka hadlo waa mid ka labaad waxaweeye xanuunka loo yiraahdo ADHD oo isna dhinaca neerfaha iyo waxa ku dhaca isna hore looma aqoonin inkastoo la oran jiray caruurtu iska qalqaal inuu jireen waa laga yaabaa wadanka ولكن ilmaha la oran jiray waa ilmo qalqaaliya waxa weey ilmo xajir ah kaas waa mid iyo caruurta oo muwaaqiciinta oo caruurta maxaa la yiraahdaa handicapka oo yara xanuunsan iyagana waxa weey ku soo bateen wadamadan aan joogno kuwaasna waxaan rabaa inaan ka hadlo iyo xanuun kale oo ilmaha ma aragtay hadalka ku dhajinay xanuun maaha waa xaalad oo ilmaha hadal ku dhajinayo wuxuuna u badan yahay waa ilmaha wiilasha marka aan darsay inta xaalad aan arkay waayo aad baan ula shaqeeyay aad baan ma aragtay u darsay runtii inta badan oo xanuunada laga helo iyo xaaladaha noocaas oo kale waxay u badan yihiin special waa wiilal أنا قدرت كسر هذا يعني إني جهر دعين وحربا إن كوبلابو أوتيسمك محوية هي أوتيسم واحد وجه وملايسا إن والد بدن وكور رسين هاي وهاي استرنتي أوتيسمك إنه يهاي حنون أوتيسمك معهن حنون أوتيسم وحوي وحالة أو قفك بنآنك اللي درسيسه قفك الصومالي أيا قبي كرا أوتيسم jirkaaga ilaahay ayaa ma aragtay hormoon kuugu beeray gudahaaga nooc kamid ah ayuu noqon karaa qofka uu yeelan karaa waa autism isagoo qof caadi oo socdo oo bini aadan ah oo leedahay qofkaas waa waxa weeye qof very smart ah qofkaas waxa weeye waa qof aqoon-yahana qofkaas waxa weeye qof billionaire oo lacag haysto ayuu haddana wuxuu noqon karaa autism marka autism waa xaalad uu qofka bini aadanka la noolaado maahan xanuun in wax la kala saara fiican haddaan aan ka hadlo autismka aan ku bilaabo autismka inta badan waxaa lagu arkaa caruurta markuu ilmaha uu 3 sano gaaro iyo wixii ka badan iyo ka weyn 3 sano iyo wax la jira ayaa lagu arkaa xaaladaha noocaas oo kala ah marka ilmaha markay waalidka isaga garan karo ilmaha uu dhalay in ilmihiisa ma aragtay uu caadi ahaan uu ka duwan yahay caruurta kale haddii kalena ilmaha oo uu kugu horeeyay uu yahayna markaad aragtay ilmahaagiyo qaylinay ilmahaagiyo nooc kala ah ilmahaagiyo aadan fahmayn isla markii dhaqaatiirta lala xiriira oo lama qarsado inta badan waayo isla markii waa la tacaalayaa ilmaha waxa weeye noocyadaas oo kale dadkan aad bay u hormareen aan la noolnahay waxbay ka qabanayaan runtii oo waxa weeye aad bay ma aragtay u daaweeyaan daawan uma haayo ilaahay dhinaciisa daawada ka jirta laakiin waxa weeye way ku dadaalayaan inay dhaafiyaan xaaladda noocaas oo kale ilmihii wax ay baraan ilmihii ma aragtay ay dajiyaan ilmihii ma aragtay ay la socdaan
ilmihii ay ka dhex saaran mujtamaca ma aragta si u dareemin inuu yahay ilmo ka duwan ilmaha kale. marka waxa weeye calaamadaha lagu arko ilmaha waxa weeye markuu yar yahay laga bilaabo 3 sano ilaa markuu ilmaha yahay 3 sano ayaa waa markuu bilaabaya ilmaha inuu ma aragtay uu dareemo inuu yahay uu soo koray uu ma aragtay wax yara kala fahmayo oo ma aragtay ilmaha markaas ayuu xaaladan ku bilaabataa. ilmiya waxaad arkaysaa oo aanan ma aragtay markuu ugu horeyso contact uu kula sameeyeen oo maanta dhan hadaad u wacaysid isaga kaligiis isku mashquulsan, hadaad tiraahdo kaalay indhaha aad u saartay asaa usoo qabatid ilmihiiyaanu ku eegeen oo ma aragtay meel wajiga saa u dadaabayo oo dhinac kale eegayo. waxaad arkaysaa ilmihii oo aad u qaylinayo ooynayo oo xanaaqiisa too much yahay. waxaad arkaysaa ilmihii oo iska ordayo caruurtiiba la ciyaareen walaalihiisa maanta dhan hore gadaal u ordayo more energy leh. aad leedahay energygan ilmahan caadi ma ahane maxaa ku dhacay oo ma aragtay calaamadahaas lagu gartaa. wuxuu leeyahay dhareer fara badan, wuxuu leeyahay ma aragtay hurdado ku yar, waxyaalo badan calaamado badan uu leeyahay. wuxuu jecel ilmaha noocaas oo kale wuxuu jecel yahay in ma aragtay dibad inta badan waxa lagu taqaatiirta ay yiraahdaan ilmaha waa inuu daalo noocaas oo kale banaanka loo saaro 24 hours uu kusoo mar walba aroortii hal jeer, galabtii hal jeer, habeenkiina intuu seexan oo kale ma aragtay la geeyo banaanka hal saac lagu soo ciyaarsiiyo maqribiyadii oo kale xataa meesha gurigaaga hortiisa, kadibna loo qubeeyo la siixiyo. marka ilmaha aroortu maalinta labaad waxa laga yaabaa inuu ka yara degan yahay oo sidii shalay oo kale uusan ahayn. laakiin haddaad tiraahdo ilmaha noocaas oo kale gurigan ku haynaya 24 hours iyadan dhibkeeda leedahay. xaaladaas oo kale xanuunka waxa laga yaabaa xaaladda inay ku sii saa'ido ilmihii xanaaq iyo nervous badan uu ka qaado. autismka wuxuu leeyahay ma aragtay waa la caawin karaa waana ma aragtay wax waa la bari karaa xanuunka autismka. xanuun maahan xaaladda autismka. wuxuu leeyahay meelo qaas la geeyo, taqaatiir oo la soconayso. maxaa la yiraahdaa marmar qaarkood iyagaaba kala nooc ah oo autismka waxa weeye autism oo aad ma aragtay caruur oo qofku uu degan yahay oo wax la bari karo oo ma aragtay la jihayn karo oo ma aragtay ilmihii marba markuu soo koroba aad arkaysid inuu isbedel weyn uu dareemayo qof bini aadan caadi uu eegaanayo. taas waa mid. iyo autism oo xajir ah oo ma aragtay isagiina wax isgaarsiinayo oo ma aragtay la ilaalinayo oo laga baqanayo inuu dhibaato isku geeyo. iyo ma aragtay xajir oo qofkii uu dilayo ma aragtay hadduu rabo waalidkiisii wuxuu rabo ku sameynayo, walaalihiisa ma aragtay inta badan way qaniinaan, way dilaan, way la dagaalamaan, way xagtaan. marka laba xaaladood weeyaan autismka, isagaaba kala duwan weli waa noocyo fara badan. laakiin noocyada aad wax loo baro waa noocyada degan oo ma aragtay haba iska noqday autism laakiin dadkiis iskaga dhex jiro maskiinka ah kaasa wax la baraa. taa waa mid. inta badanna autismka daawo uma baahno, waxa weeye waa wax ma aragtay isaga waqtiga uu ilmaha koro qofka bini'aadamka uu koro uu la weynaado uu caadi iska noqonayo. qaarna waaba qaarkaasoo ma aragtay iska xanuunka ay ku tilmaamayaan kadibna daawooyin lagu dajiyo ayay leeyihiin. waa kuwa xajirka ah, kuwaas weeyaan kuwa oo ma aragtay lagu tilmaamay inay xanuunsan yihiin oo u baahan yihiin caawitaan. inkastoo marka aan arkay labadaba waan la soo shaqeeyay, markaan arkayba labadooda noocyada ay yihiin labadaba ma ahan xanuun, waa xaalado. taas waa mid. talabaad aan rabo inaan ka hadlo mid walba wax yaraan ka tataaban insha allah, meesha laguma soo koobi karo. intaan u galay ADHD-da waxaan rabaa waxaa maqlay oo aad ma aragtay ugu muhiimsan autismka. horena mar baan uga hadlay aaladda TikTok aan ka leeyahay baraha bulshada. waxaan waxaa jirta saliid kalluun oo la yiraahdo lagu gado wadamadan aan joogno Yurub, meel walbana waa laga helaa. waa saliidda kalluunka, waa saliidda oo malayga
oo fadhida taasna waxa weeye maasha allah ilmaha waxa weeye maskaxdooda aad bay u dhistaa talabaadna wax weynaan ka fahmay runtii gabar aan saaxiiban nahayn oo ilmo autism lehnana waan siiyey iyadana waxa weeye maasha allah tabaarak way igu mahad celisay waxay igu tiri walaalo wax weyn isbedel weynaa ilmihii ka arkay horta marka ugu horeyso aad buu iigu degay tiri hurdo aan u seexan jirinna wuu yeeshay tiri marka waxa weeye saliidda kalluunkana way caawisaa haddana waxaa maqlay oo aada loogu daawoobay caruurta oo autismka qaba aabbaha iyo hooyada midkood habeen kasta waa inuu ku aqriyaa ilmaha intuuna seexan 3 jeer suurat araxmaan dhagaha uga aqriyaa 3 jeer iyadana waa la ammaanay waana daawo qur-aanka mar horaaba la yiri waa shafeec waxa weeye ilmaha waa wax kaliya lagu daawoobo xanuun kastaba ha noqdo laakiin suurat araxmaan waa la sheegay aad baa loogu daawoobay xanuunka autismkana wax weyn ayaa looga gartay ilmihiina weli special aabaha iyo hooyada ilmahooga habeen walba ay ka iloobin waa inay ku aqriyaan suurat araxmaan taas waa mid haddaan u gudubno ADHD waa xanuun aan oran jirnay xanuun qalqaa yani wax way xaalad oo isna qofka bini'aadamka la soo darsayso inta badan waxaa lagu arkaa ilmaha markuu yar yahay ilaa uu ka qaangaarayo ADHD-ga laakiin markuu qaangaaro uu teenage-ka iyo waqtiga muraaxaqada uu galo ilmaha uu iska degaa laakiin iyaga waxay ku tilmaameen iska xanuun oo dhinaca neerfaha ka imaanaya maskaxiyan qismiya neerfo ah oo ilmihii uu kontrooli kareen qofka bini'aadamku waa inuu kontrooli karo actionkiisa iyo dareenkiisa iyo ma aragtay reactionkiisa laakiin qofkan oo ADHD-ga qaba ma kontrooli karo wax ka tan badan ayaa ma aragtay ku jira jirkiisa taa waa mid marka saas awgeeda waxay ku tilmaameen xaalad oo ma aragtay iska xanuun oo kala ah marka iyadaba way kala duwan tahay oo waxa weeye xaalado oo kala duwan ay maraan dadka noocyadaas oo ADHD-ga qaba qaar waxa weeye waa xanuun waxa weeye waa qaar iska qalqaaliba ha ahaadaan oo iyaga ma aragtay maanta dhan waxba kaama maqlayaan toodooda oo cad waxa weeye energy zaaid ay leeyihiin oo extra ah oo aan lahayn caruurta kale ma fadhinayaan maanta dhan waxa weeye way istaagayaan way fariisanayaan waxa weeye wax aan loo joogin ay maanta dhan ku dhaqaaqayaan marka saa awgeeda kuwaas oo kale iyagana waa xaalad oo waxa weeye iyagana wax waa la bari karaa waxay leeyihiin iskuulo u qaasa waxay leeyihiin fasalo u qaasa waxay leeyihiin macallimiin u qaasa waxaa laga yaabaa in 10 caruur ay hal fasal lagu haayo oo noocaas oo kale in 5 macallin oo mid walba profession gooni uu leeyahay oo ma aragtay ilmahaas ku takhasusay noocaas oo kale inuu fasalkii dhexdiisa u fadhiyo marka waa opportunity aanan la heli kareen waalidiinta aan waxaan oran lahaa ilmihiin xaaladahaas oo kale markaad ku aragtiin hana ka diidina in ma aragtay aad geysiin meelaha oo caafimaadka oo takhaatiirta aad la xiriirtiin hana ka diidina in ilmihiin marka lagu sheego xanuunka oo la yiraahdo waxa weeye fasal u qaasan geenina oo xanuunadaas oo kale waayo isagay faa'iido u tahay mana dareemayo cunsurnimo mana dareemayo aqoontiisa hoos u dhacdo waayo wuxuu la socdaa dad noociisa oo kala dad levelkiisa oo kala ah marka waxaa maqlay oo inta badanna Soomaalida aan ku arkay marka ilmaha la yiraahdo ilmahaaga xaalad noocaas oo kale ayuu qabaa waalidkii ka boodaya meesha ilmahayga kuma tilmaami kartiin ilmo ma aragta jiran ilmahayga waa ilmo caafimaad qaba ilmahayga ma aragta uma rabo fasal noocaas oo kale haddii kale gurigan ku haysan haddii kale waxa weeye ilmihii waba iga waaleex iga ka dhigeenba ilmo aan caadi ahayn oo jiran laakiin ilmahayga waxaan u arkaa ilmo caadi ah
daf ay siinayaan waxay geenayaan wadankii ilmihii hadhow isagoo xaalad autismkana waa la mid isagoo xaalad laga qaban kareen waxba oo iska dhaadhaan ah oo ilmihiiyo wadankiina dee aad iska taqaana markuu ilmaha qalqaali yahay oo ilmihiina wax yar ka sii yihiin waxaba la leeyahayba mujtamaca ma dhexgali karo waxaba lagu tilmaamay iyagaaba sii waalayo iyagaaba ma aragtay si u dilayaan loo garaacayo ayeydii awoogii abtigii isma dhaantii dhasheeda ilmihii oo dhan ma aragtay isagiyaaba wuxuu noqonayaa ilmo oo ka ordaba caruur familkii mise isagaaba isku arkayo inay wax si ka qaldan yihiinba oo loo leeyahay ilmaha waxa weeye ilmo oo aan ahayn ilmo caadi ahayn marka waxa wanaagsan ilmaha wadankan uu ku dhashay wuxuu haystaa keer badan wuxuu haystaa takhaatiir wuxuu haystaa meel waxbarasho wanaagsan wuxuu haystaa dad oo ma aragta professional u ah oo xaaladiisa la soconayo oo daaweynayo markaan waxaan hooyo kasta iyo aabbo kasta kula talin lahaa ilmahaaga marka xaaladaha noocaas oo kale lagu sheego inaadan ka boodin oo aadan u arkin in ma aragta ilmahaaga la dhibaateynayo aada u aragtid ilmahaaga wax loo tarayo taas waa mid adhga isna waa saas la eg markaad ku aragtiin ilmihiina waa inaad sida ugu dhaqsaha badan aada ula xiriirtiin maxaa la yidhaahdaa takhaatiirta aada u sheegtiin oo aadan ka qarsan dakhtarka in ilmahaaga jiray ilmahaaga noocan aada ku aragtay taa waa mid waxa kaloo aan rabaa meesha inaan ka sheego xaalad kale jirto oo xanuun ah laakiin xaaladaas waxa weeye xaaladda layaa handicapka wuu igu adag yahay caruurtan jirjiran oo ma aragta ku dhasha iyagoo jiran oo xaaladaha kala duwan leh qaar waxa weeye qaarka oo ma aragta madaxa waaweyn oo indhaha yaryar qaar kuwaas waxaa la yidhaha waa nooc gooniya qaar waxaa jiro oo qof caadi u eg oo aanan u eegeen ilmo oo jiran laakiin maskixiyan iyo jismiyanba u jiran kuwaasna waa kuwo kale way kala duwan yihiin waxa weeye waa noocyo fara badan qaar waxaa jiro sariirta saaran oo iyagoo dhan ma aragtay lugahooga gacmahooga waxooga dhan wada yaryar yihiin oo ma aragtay lagu leeyahay waa kuwa ugu daran oo ma aragtay dhibayo waalidkii oo maanta dhan ma aragtay in aada kaxaysid oo musqusha geysid iyo ma aragtay way jiraan waalid badan oo haysta noocyada ilmahaasan meelaha aan joogayna aan ma aragtay aan tegi jirayna way joogeen noocyadaas oo kale iyo kuwo kale oo maanta o dhan ma aragta dhareerkii iyo waxba aanan kala cashan karaynin oo waxbaba kala ogeyno ma aragta xaarkii dhareerkii wax walba isku darayo allahuma najina waxa weeye waa noocyo fara badan oo kala duwan marka iyagana waa xaalad oo xanuun ah kuwaasna waxay leeyihin daawooyin waxay leeyihin takhaatiir ma aragtay u qaas ah waxay leeyihiin iskuulo u qaas ah wax waa la baraa waxay kusoo baxaan professional waxay kusoo baxaan ma aragtay qof walba wuxuu jecel yahay ayaa lagu jiheeyaa marka iyagana in ma aragtay la yidhaahdo waa caruur jiran ma ahan hooyada haysato ilmaha mise isku aragtay markay uurka leedahay inay ilmo noocaas oo kala wado waxaa ani kula talin lahaa in ilmaheeda ma aragta markuu dhasho ayna meelna dankan cadaankana ay u dhiibin ayna iska tuurin ayna dilin ilmahan ilaahay horta marka hore ay ku shukrisay tiraada ilaahay adaa jirkayga kasoo jaraye alxamdulilah kulli shay ilmaha ay kula tacaasho waayo wax jirkaaga kasoo go-ay ilaahayna kaa beeray aadan u arkin wax dhibaato ah aadan u arkin wax weyn oo aada u aragtaa inuu ilmahaaga ka mid yahay ana alxamdulilah aad tiraahda kun jeer dadaaba haysan xataa hal oo handicap ah marka ilmahaas marka hooyada caloosha ay ku jirto ayaaba wadamadan aan joogno loosii sheegayaa laleeyahay jekinka shanaad bisha markay 5 bil ay tahay ay marayso mise jekinka saddexaad ma oga ayaa lagu ogaadaa dheecaamo laga qaadayo dhiigag miya mise wax la saaro caloosha laga saaro hooyada ayaa lagu ogaanayaa ilmaha inuu ilmo jiran yahay marka iyaga ma aragtay laba option ku siinayo optionka hore waxa weeye ilmaha ma ka soo saarnaa optionka labaadna waxa weeye maad haysan ilmaha
labada option ayay weydiiyaan gaalada. maadaama aan nahay dad muslina inta badan waxa weeye waan diidnaa oo waxaa la yiraahdaa dad muslimaan nahay ilmihiina ma soo xaaqayno. dadka laakiin gaalada intooda badan ma jeclo dhibka, mana jeclo ma aragtay waa gaalo in ay ilmaha noocaas oo kale ay haystaan. hadday dhalaan xataa oo by accident ay ku dhalaanna waxa weeye waxay kusoo tuuraan meelahan oo lagu haayo, meelo qaas ay leeyihiin oo lagu xanaaneeyo. marka maasha allah waxa weeye wax walba ilaahay keeno horta in lagu xamdiyaa wanaagsan. xaalad kastan oo timaado oo ilmo jirkaa kasoo go-ayna lasoo gudboonaatana waxay leedahay xalkeeda, waxay leedahay ma aragta keerkeeda inaad keergaraysidoo aada isku xil saarteed. marka ani waalidiinta oo dhan waxaan oran lahaa xanuunka iyo abuurista allah in lala dagaalamo ma wanaagsano. waxa weeye waxan waa wax ilaahay uu keeno, waa wax ma aragtay iska imtixaan ah. marka xaalad kastoo kula soo gudboonaato ma fiicna inaad qarsatid. wixii aad qarsatid way ku qarsadaan. ilmahaaga mar walba wadan waxaad joogtaa hormaray, waxaad joogtaa ma aragtay wadan oo wax laga qaban karo xaalad kasta oo ilmaha kusoo gudboonaato. ilmaha markuu yaryahay from 2 years uu bilaababa dhaqdhaqaaq iyo ma aragta inuu action raaco waalidka indhihiisa iyo wuxuu sameynayo waalidka uu la socdo, uu hadal bilaabo. maalintaad ka aragtid wax qaldan oo ka duwan sida ilmaha kale, isla markii please waxaan oranayaa waa inaad contacti la sameysiin dhaqaatiirta iyo qolooyinka ahaayaba oo ma aragt meelaha ilmaha lagu haayo. marka iyagaas ayaa xal gaarayo. marka ta kale oo jirta waxa weeye caruurtan oo kasoo daahayso hadalka oo iyagana aada noogu soo batay oo ma aragtay ilmihii markuu 3 sano gaaro oo aad rabtay inuu hadlo mise kelmad uu yiraahdo mise hooyo uu yiraahdo mise aabba uu yiraahdo hadalba kasoo baxeen. taasna waa xaalad kale oo kusoo korodhay. laakiin waxay isku system yihiin oo xoogaha yar aada u maleysaa oo dadka ay kala saari kareen autismka xataa ilmaha ma hadlo. laakiin autismka waxa weeye waxaa laga yaabaa ilaa waqti inuu hadlin, ilaa ma aragtay isagoo qof weyna xataa uu indhaha kaa eegayo uu hadlin. marmar qaarkoodna autismka waa laga soo saara hadalka wuu hadlaa isagoo autism ah. qaar iyagaaba kaa hadal badan. marka waa xaalado weeyaan autismka. laakiin kan waa ilmihii waa xaalad kale aan ahayn autism. ilmihii waxa weeye sidii systemka autismka weeyaan, laakiin autism ma ahan. hadalkaa ku dhagayo ilmaha, waxbarashada ku yara adag, waa dhinac isba wuxuu ka socdaa dhinaca maskaxda. laakiin waxa weeye waa hooyada iyo aabbaha inay isku xil saaraan. waa in ilmaha aabbaha iyo hooyada ay ma aragtay iyaga xoog ay saaraan say uga soo saari lahaayeen hadalka. waayo waxaa jiro wadamadan aan joogno waxay leeyihiin dad u qaas ah oo ilmihii intuu qabto la fariisanayo wiigeed u geynaysa 3 jeer, daktarka soo go-aamiyo. waxaa wadankan aan joogo finishka dadkan igu xiran oo daawanayo kulley way garanayaan, waxaa la yidhaha terabiya. ilmaha waxa weeye maskaxda iyo hadalka iyo waxa isla socda jismigii iyo jirkiisa u wada shaqeynayay. marka markuu hadlo ilmaha maskaxdii ayaa ma aragtay diidayso. marka saa awgeeda ma hadli karo, waayo wixii isku wada xiran. xataa waxay ku leeyihiin ilmaha hadalka kasoo daaha wuxuu u baahan yahay fisoterabiya. jirkiisa xataa waa daciif, waa waxa weeye waa naaqus oo yacni sida ilmaha kale wuu cabsanayaa, ma awoodi karo meelaha ilmaha koreen oo kale inuu koro. se ilmaha caadiga u cayaarayaan waa ilmo caadiya, laakiin waxa ku jiro dib u dhac. agkiisa ayaa yaro dambeeyay ku leeyihiin dhinac maskixiyan. marka taasaa keenayso meeshuu 3 sano 4 sano uu ka ahaa ilmaha wuxuu la mid yahay ku leeyihiin 2 sano, wuxuu la mid yahay ku leeyihiin 3 sano. wax ka wadaa
hal sano. Marka ilmaha oo hadalka ku dhaga waalidka waa inuu la tacaalaa oo isaga la hadlaa. waayo naagtan professionalka ah waa qof bini'aadam adag kula mid ah oo buugi qalin soo baratay. laakiin waxaad arkaysaa qofkaas gabadhaas mise ninkaas uu u tagay oo ka hadal siinayo maanta dhan hadalka kusoo calcalinayo oo ma aragta ilmihii waqti siinayo oo waxa jiro waxyaalo yaryar oo warqado ah oo ilmihii ma aragta system gooni ay wax u barayaan ay uga hadal siinayaan. systemkaas ayaa fiican hooyada iyo qolooyinkaas oo ma aragtay caafimaadka dhakhtarka soo go'aamiyo inuu ilmaha ay hadal ka soo saaraan inay ilmaha ma aragtay systemkay wax u barayso. hooyada kolley way ag fadhinaysaa mise aabaha wuu la joogayaa marka inta ilmaha la barayo oo ay intaas ay la ciyaarayso way la ciyaaraysaa hadba noocay ma aragtay wax u tusisaa warqadahaasi ma aragtay kala duwan ayay ma aragtay ilmihii ay ku baraysaa wax. systemkaasaa laga soo qaataa isagoo Soomaali ah iyo isagoo wadanka aad joogtay meeshuu aad joogtay I don't know doontaba ha noqotay ayaa labada luuqadood ayaa ilmaha hooyada ayaa u dhow ilmaha hooyada saasaan u iraahdaa. hooyada waa inay ahaataa hooyo wadanka ay joogto luuqadiisa taqaana. in hooyada in wax la baro markaan leeyahay hooyada in wax la baro waa muhiim waa sidaas oo kale. waayo ilmahaaga marka aad ku dhashay wadan gaalo ah waxaad ka badbaadaysaa waxyaalo badan. waxaad ma aragtay u faa'iideyn kartaa ilmahaaga hadday xaaladan oo kale markay kula soo haboonaato ilmahaaga uma baahanayo in qolooyin aad u geyso. ilmahaaga adaa kasoo saaran kartid hadalka. waayo waxa way ilmahan waa hadal shaygii hal shay ina maalin walba aad ku calisid hal wax inaad maalin walba aad u sheegtid aad luuqada wadankaasna aad ugu sheegtid waa hooyada smartiga ah waa hooyada aqliga leh waa hooyada wax baratay waa hooyada luuqada taqaano wadankaas ay joogto. marka waxa way adaa ilmahaagii hadalka kasoo saari karta. maxaa naag facaaga ay hadalka luuqad kale oo ajnabiya ilmihii ugu daldalmaya oo lagu leeyahay waxay ku leeyihiin marmar qaarkood ilmaheeni luuqadii oo hooyo oo dhan kuma hadlayo. waayo adaanan waqti siinin ilmahaaga adaanan ma aragtay u fadhiisan adaanan waqti gelin adaanan dhabta saaran ilmahaaga waa kasoo saari kartaa. naag facaaga intay kasoo saari lahayd waayo wax ma qabo ilmahan waa xaalad ay ku yiraahdeen ilmahaaga wuxuu ka hooseeyaa ilmaha kale caadiga ah waxaan ula dhaqmaynaa si ilmo 2 jir ah markuu jiro 4 sano mise 6 sano si ilmo 3 sano jiro oo kale isagaana hadhow iska hadlay ku leeyihiin isagaa hadhow ilmaha caadiga kusoo darsoomayo. marka waxay iyaga ku yiraahdaan dhaqaatiirta iyo dadkan aad la shaqeynaysa systemkaas la raacaa. saas awgeeda ayay roolka hooyada iyo aabaha muhiim u yahay in oo wadamadan qurbaha aan joogno iyo wadamadan gaalada aan joogno inay wax bartaan runtii. waayo dhibaatooyin badan ayay ka badbaadayaan. markaasaa awgeeda xaaladaasna aad bay noogu soo badatay laakiin iyadana xanuun ma ahan waqti bay leedahay oo kooban oo ilmaha uu ku caafimaado. waana in aad la tacaashid dhakhtarkiisa ma aragtay qolada hayso gargaartanka qolooyinka aad u geenayso oo ka hadal siinayo qolooyinka fisioterapiyada yacni meel walba oo lagu diro ilmahaagaas waa inaad daba oradid. waxaad arkaysaa waqti caadi ah aayar in yar isagoo ma aragtay ilmihii caadi uu kusoo noqday oo dadkiisii iyo ejkiisii iyo ilmihiisii ficiisii uu la jaan qaadayo. markaasaa awgeeda Soomaaliya yaa wax la isku qaldin xanuunadan way jiraan oo waxa weeye waxa lagu arkay wadamadan aan joogno wayna ku soo bateen Soomaalida runtii. laakiin hooyo kasta iyo aabba kasta isagaa ka bixi karo isagaana la tacaali karo ilmihiisa isagaana meel ka soo saari karo. haddii ilmahaaga aad ma aragtay dayacdid wuu dayacmaya. haddii ilmahaaga aad si fiican u korisid oo xaalad kasta la soo gudboonaatid aad tiraahdid aad kula la tacaashidna waad ka gudbaysaa. marka
horta aan isku soo faataxeeno aan isku soo duceyno dad muslimaan nahay ilaahay ma aragta ilmo kastoo caafimaad qaba allaha ma aragta caafimaad ha siiyo hooyo iyo aabbo kastoo dhibaataysanna ilaahay dhibka ha ka saaro annagana ubadaan haysanaa meel qurbaan joognaa wadan gaalaan joognaa noo soo duceeya in ma aragta ilaahay inuu nagu badbaadiyo shirtooda naga badbaadiyo ma aragta dhibkooga naga badbaadiyo waxaan usoo fadhiistay youtube-ka waxaan jeclahay walaashiina mulki waxyaalo badan ay igu aasan runtii khibrad badan ayaan hayaa nolosha waxyaalo badan ayaan kasoo arkay waxaan jeclahay ummadayda oo kala quban ummadaydan oo ma aragtay kala faquuqan ummadaydan oo qurbaha ku dhibaataysan ummadaydan oo ma aragtay runtii qof walba isla saxsan yahay inaan u faa'iideeyo bini aadanaan ahay waa qaldami karaa hadal qalad wuu iga dhici karaa si qaldan waxaan u sheegi karaa cafis iyo masaamax laakiin waxaan isku dayaa mar walba runtii aana youtube-kaygana aan u furtay inaan dhinac walbaba ma aragtay dadkayga iyo ummadayda aan jeclahay ee soomaaliyeed inaan uga faa'iideeyo wixii aan ka aqoon badanahay wixii aan uga waayo aragsanahay nolosha ma oran karo waxaan ahay qof perfect ah waxaan ahay qof ma aragtay wax walba og ma oranayo naaqos waan qabaa ma aragtay laakiin I try all my best in ma aragtay dadkayga aan wax u faa'iideeyo wixii aan ka roonahay haddana sidaa ii nabadgeliyo kulley waxaan jeclahay kulley wax yar inaad iga faa'iideysateen oo aad ma aragtay aan inii faa'iideeyey haddana waxa weeye saas iyo nabadgelyo waxaan iniigu dhaafay waxaan inii dhaafay kheyr iyo insha allah kulanti dambe inakoo caafimaad qabno inakoo nabad qabno sidaa iyo nabadgelyo waa walaashiina mulki assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu